waxaan muddo usbuuca ku maqnayn magaalada xamar oo ay ka dhacaysay isbeddelkii iyo doorashadii madaxweynenimada ee Soomaaliya dabcan dowladda Puntland oo ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan dowladda federaalka Soomaaliya waajib ay ahayd inay tagaan ka qayb gallo kor joogtayno isbeddelkaasoo saameyn weyn dabcan ku yeelanaya itijaaha siyaasadeed dalka Soomaaliya marka Puntland muhiim bay ahayd inay joogto kana qayb gasho aniga iyo wafdigii ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka haddaan Puntland nahayna waxaanu ballan qaadnay oo madaxweynaha ka cusub ka ballan qaadnay inaanu si dhow ula shaqaynayno wixii tala ah iyo wixii tusaalaha oo aanu ku biiri karana ku biirin doono kuna soo dhoweyn doono waqtiga ugu dhow inuu ku yimaado Puntland insha Allah inta haddaan kaga baxo waxaan rabaa mar labaad inaan halkaan tacsi uga diro oo ummadda Soomaaliyeed walbay joogaan gaar ahaan dadka reer Puntland oo madaxweynahoodii hore mudane maxamuud muuse xirsi boqor cadde muuse uu dhawaan ku dhintay dalka sultanka imaaraadka carabta insha Allah talaada ayaa la keeni doonaa marxuumka askaran ayaanu ugu samayn doonaa magaalada Boosaasood waana tacsiina dhammaanteen sababtoo wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed oday Puntland buu ahaa reer gaara kama dhiman iyo qoys gaar ah Puntland oo dhan ayuu ka dhintay Soomaaliya oo dhanba marka waa soo dhaweynaa insha Allah marxuumka meedkiisa ayaan sugaynaa talaadada saan sheegay askaran oo samayn doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo waxaan muddo usbuuca ku maqnayn magaalada xamar oo ay ka dhacaysay isbeddelkii iyo doorashadii madaxweynenimada ee Soomaaliya dabcan dowladda Puntland oo ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan dowladda federaalka Soomaaliya waajib ay ahayd inay tagaan ka qayb gallo kor joogtayno isbeddelkaasoo saameyn weyn dabcan ku yeelanaya itijaaha siyaasadeed dalka Soomaaliya marka Puntland muhiim bay ahayd inay joogto kana qayb gasho aniga iyo wafdigii ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka haddaan Puntland nahayna waxaanu ballan qaadnay oo madaxweynaha ka cusub ka ballan qaadnay inaanu si dhow ula shaqaynayno wixii tala ah iyo wixii tusaalaha oo aanu ku biiri karana ku biirin doono kuna soo dhoweyn doono waqtiga ugu dhow inuu ku yimaado Puntland insha Allah inta haddaan kaga baxo waxaan rabaa mar labaad inaan halkaan tacsi uga diro oo ummadda Soomaaliyeed walbay joogaan gaar ahaan dadka reer Puntland oo madaxweynahoodii hore mudane maxamuud muuse xirsi boqor cadde muuse uu dhawaan ku dhintay dalka sultanka imaaraadka carabta insha Allah talaada ayaa la keeni doonaa marxuumka askaran ayaanu ugu samayn doonaa magaalada Boosaasood waana tacsiina dhammaanteen sababtoo wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed oday Puntland buu ahaa reer gaara kama dhiman iyo qoys gaar ah Puntland oo dhan ayuu ka dhintay Soomaaliya oo dhanba
marka waa soo dhaweynaa insha Allah marxuumka waxaan muddo usbuuca ku maqnayn magaalada Xamar oo ay ka dhacaysay isbedelkii iyo doorashadii madaxweynenimada ee Soomaaliya dabcan dowladda Puntland oo kamid ah xubnaha ugu muhiimsan dowladda federaalka Soomaaliya waajib ay ahayd inay tagaan ka qayb gallo kor joogtayno isbedelkaasoo saameyn weyn dabcan ku yeelanaya itijaaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya marka Puntland muhiim bay ahayd inay joogto kana qayb gasho aniga iyo wafdigii waxa ay kamid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka haddaan Puntland nahayna waxaanu ballan qaadnay oo madaxweynaha ka cusub ka ballan qaadnay inaanu si dhow ula shaqaynayno wixii tala ah iyo wixii tusaalaha oo aanu ku biiri karana ku biirin doono kuna soo dhaweyn doono waqtiga ugu dhow inuu ku yimaado Puntland insha Allah inta haddaan kaga baxo waxaan rabaa mar labaad inaan halkaan waxaan muddo usbuuca ku maqnayn magaalada Xamar oo ay ka dhacaysay isbedelkii iyo doorashadii madaxweynenimada ee Soomaaliya dabcan dowladda Puntland oo kamid ah xubnaha ugu muhiimsan dowladda federaalka Soomaaliya waajib ay ahayd inay tagaan ka qayb gallo kor joogtayno isbedelkaasoo saameyn weyn dabcan ku yeelanaya itijaaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya marka Puntland muhiim bay ahayd inay joogto kana qayb gasho aniga iyo wafdigii waxa ay kamid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka haddaan Puntland nahayna waxaanu ballan qaadnay oo madaxweynaha ka cusub ka ballan qaadnay inaanu si dhow ula shaqaynayno wixii tala ah iyo wixii tusaalaha oo aanu ku biiri karana ku biirin doono kuna soo dhaweyn doono waqtiga ugu dhow inuu ku yimaado Puntland insha Allah inta haddaan kaga baxo waxaan rabaa mar labaad inaan halkaan tacsi uga diro oo ummadda Soomaaliyeed walba ay joogaan gaar ahaan dadka reer Puntland oo madaxweynahoodii hore mudane Maxamuud Muuse Xirsi Boqor Cadde Muuse oo dhawaan ku dhintay dalka Sultanka Imaaraadka Carabta insha Allah talaada ayaa la keeni doonaa marxuumka askaran ayaanu ugu samayn doonaa magaalada Boosaasood waana isaga tacsiina dhammaanteen sababtoo ah wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed oday Puntland buu ahaa reer gaara kama dhiman iyo qoys gaar ah Puntland oo dhan ayuu ka dhintay iyo Soomaaliya oo dhanba marka waa soo dhaweynaa insha Allah marxuumka meedkiisa ayaan sugaynaa talaadada saan sheegay askaran oo samayn doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada insha Allah شقال أردي